السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي غالية دمانتي نتبرني سلام يا سود وهذا وولاشين عاش عمر عاو حربا رسالتي ركوسا صور كايغا جيتو إن لو ذاقو سابتا كانتين إن لو ذاقا نهرتو وحنا قفكي صور كلها عاش عمر أيان هاي نوجددا aan rabay inaan la wadaagana dad badan ayaa u baahan inay maanta sawirkayga wax ka ogaadaan ama mar walba i weydiiya ujeedada markii hore aan maartay isbedelka u sameeyay waxay ahayd inaan hadafka aan leeyahay aan gaaro alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta hadafkii aan lahaa waan gaaray waayo hooyanahay hooyo marka tahayna hawl badan ayaa qabiyo ah oo ku sugaysa nolosha dhan kastaba ha noqoto ama familka ha noqoto ama ilmaha ha noqoto ama maaragtay inad hooyadii doo adigu hooyo mas'uuliyad baa saaran ujeedada maaragtay sawirkaygan ka dambeysana waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan bartay waxyaabaha igu habboon iyo waxyaabaha aan igu habboonayn qofku maaragtay markaan historigayga la sheergareeyo waliba khaasatan caloosha aad u jeedaan ayaan rabaa caawa inaan wax iniga taabto inta badan haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed caloosha waxa inaga gaadha waxa weeye markay hooyadu uur yeelato isma qabanayso oo isma xakameynayso oo cunto healthy ama nutrition ah ama wanaagsan oo miisaankeeda xakameynaya ma isticmaasho laakiin boorash caano shaah sonkor kimis ama sabaayad kolba saa u taqaaniin ayaynu isticmaalayna waxyaabahaasna waxyaabaha carbohydrate ku badan yahay halka inagu waxaan ku fakaraynaa inaan ilmiin naas jaqsiino laakiin naas maaha waxa weeye carbohydrate ku badan oo miisaankaaga kor u kacaya marka sababta keentay aniga maanta in calooshaydu ay saan noqoto waxa weeye horta jirku beeshii markaa dabacda ee jilicsanaata ee go'da ayuu miisaanku degdeg u fuulaa sababtoo ah miisaanku degdeg wuxuu iga fuulaa caloosha iyo bawdiyaha waxaana waxa keenay waxa weeye qofku markuu jirkiisu dabco ee uu jilco ee aan wax sport samaynin faadkiina ku fara badan yahay mar walba miisaanki wuxuu aadayaa barti jilicsanayd buu aadayaa si uu u sii fido marka sababta keentay maanta aniga inaan isbedel ka sameeyo waxa weeye miisaankaygii oo 100 kiilo ku dhowaan arko 1 kiilo mise 2 kiilo aad wax saasa ka dhinaa calooshaydi oo sii socota ayaan arkay oo baride ma soo qaban karo qaliinna ma geli karo hooyo qalanna waan ahaa sababta ka dambeysay in calooshaydu saa noqoto ama sidaa noqdana waxay ahayd qofku markuu ilmaha ugu dhalo ilmaha koowaad markuu dhalo saasaad u garaysaa ilmaha koowaad markuu dhalo inta badan wis dhowraa marka lagu qala ilmaha wis dhowraa wis xakameeyaa wuxuu damcaa inuu maaragtay iska ilaaliyo socodka faraha badan leh in maaragtay uu cunto wanaagsan aanu cunin sidaa darteed waxaa keenaysa inaad fido marka aniga markii cunugteeda koowaad laygu qalay aan dhalay saasaan noqday kadib markii cunuga labaadna waan siyara qabtay oo maaragtay laakiin maanta sidaan aan wuxuu fahansanahay shalayto uma fahansanayn alxamdulillaah rabbil caalamiin waayo waxaan helay coaching waxaan helay garab qabasho waxaan helay in wadada saxda ah lay tilmaamo waxaan helay waxa igu habboon iyo waxaan igu habboonayn ayaan kala bartay sidii markay dhacday saddexda cunugba waxaan ku maray qaliin waxaan go'aansaday markaa qaabkeed calooshaada u jari kartaa qaabkeed dadaal u sameyn kartaa horta number 1 inaad cuntadaada bedesho gym kasta oo aad maanta samayso cunto miisaanka ma jaraayo waa daalun bad ka qaadaysaa iyana maalina tagta maalina iska deyso waxaan doorbiday in aan cuntadayda bedelo maxaan si cuntadayda ku bedelaya cuntadayda waxaan ku bedelay cunto healthy ah oo nutrition ah oo aniga umul ah oo 3 cisho cunugaygu jira inaan isticmaalo cuntadaydii markaan isticmaalay inaan markiiba dareemay muddo bil ah in 12 kiilo ay iga dhacday in calooshaydi ay soo ururtay kadib waxa sameeyay aniga oo qalan ismaan oran macnaha wad qalantays dhowr laakiin beesha waxaan soo galiyay waad qalan tahay maxaad samayn kartaa maxaad aanad samayn karin waa inaad is weydiisaa haddii xitaa adigoo aanad maaragtay xarakadii aayarka ahayd aanad wadi karayn waxa habboon inaad mar walba la tashato dhakhtarkaaga guud oo tiraado intaasoo bilood buu cunugayga jiraa xaaladayda caafimaadna waa caynka caafimaadku maaha caafimaadka inaan caafimaad qabno cudurku waa baruurtu waa cudur waa in laga hortagaa waa caafimaadkeena inaan baadhno number 1 yada ugu horeysa dhakhtarkayga waan la tashaday wuxuu dhakhtarku birama qaadi kartid laakiin socod waad samayn kartaa
sports yaro caloosha inaad soo kacdo waad samayn kartaa sidii baan ku waday alxamdulilah maanta resultiga aad aragtay ayaan haystaa waxaan leeyahay hooyo kasta Soomaali haddaan nahay qurbaha ama wadankii meel walba ku dhibaataysanahay sababta keentay waxa weeye isma maqallo talada wanaagsan iyo dhiirigelinta wanaagsan ma kala qaadano laakiin qof kasta gadaal buu ku ogaadaa waxaan leeyahay aan guriga ka soo baxno waxaan leeyahay aan harumar samayno waxaan leeyahay aan isbedel samayno waxaan leenahay aan noqono hooyooyin caafimaad qaba oo life style-kooda iyo quruxdooda ku xaragooda oo ubadkooda xaraga iyo jacayl iyo kalsooni ku korsada inaan noqonin maaragtay hooyo mar walba iyadu isku qanacsan oo ku oranaysa anigu waxa wanawooda anigu waxa waan sameeyaa way waxa jirta fikir maanta aniga iga maqan oo adiga kugu jira fikir adiga ka maqan oo aniga igu jira tala iyo tusaale waa la wada qaybsadaa muhiimaduna waxay tahay inaynu miisaanka iska dhinno maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin hooyanahay aad ayaan u faraxsanahay isbedel ayaan haystaa maanta sawirkayga wuxuu noqday in maaragtay su'aalo badan iiga yimaadaan in rag ah sawirkayga ii soo diraan oo laygu yiraahdo qoftaasi ma adiga waayo sababta waxa weeye anaa go'aansaday inaan isbedelka keeno marka waxaan kaaga tagayaa inaan videoga badiyo ma rabo waxaan kaaga tagayaa go'aankaagu yuu noqonin go'aan lagu leeyahay waa inaad adigu qaadataa waa inaad isbedelka samaysaa waa inaad lifestyle-kaaga bedeshaa waa inaad habka cuntada aad u cunayso aad bedeshaa waxa doonta ku bedel ama wadankii joog ama qurbaha joog macnaa waa inaad cuntadaada bedeshaa waayo wadankeena maanta Afrika waxa jira cuntooyin aad u fara badan oo maaragtay aan wadamadan iminka maanta laga helin waayo wadankeena cuntada way soo baxdaa cuntadu waa cunto maaragtay natuur ah waa cunto healthy ah xitaa miisaanka waad kaga dhimi kartaa socod baad samayn kartaa maalinkii biyo badan baad cabi kartaa adiga ayaa loo baahanyaa inaad mindsetkaaga kor u qaado inaad isbedel la timaado marka dhammaantii waxaan igaga tagayaa oo walaashin Caasha Cumar sawirkayguna waa ka aniguna way kan alxamdulillaah rabbil caalamiin aad ayaan u faraxsanay waxa maanta noloshayda bedelan waxa kamid ah number 1 dacartaas waxay aad kaga caawinaysaa waa shaawarka caloosha dhaqa ee nadiifiya subaxii salaadii markaad kacdo ayaad biyo kulul ku isticmaalaysaa biyo diiran shaahan oo kale maalinkii wuxuu ku siinayaa energy waayo maalin oo dhan waxaad ka daba ordaysaa iskool caruur baad ka daba ordaysaa imiga barsambi oo kale ana waan soomanahay saaka 6 baan kacay ma daalin alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh ilmahayga iskoolkan geystay 4 barkii waan ka soo kaxaystay gurigaygii waan ka shaqaystay waan afuray waniga videogayna la wadaagaya marka waa muhiim qofku inuu bedelo cuntadiisa kaasina waa sheega subaxii aan ku quraacdo maantana alxamdulillaah aan ku afuro marka dhamaantii waxaan igaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo igaga tagayaa qudaartu waa muhiim gurigaaga iyo ka mareen qudaartu waa waxyaaba faytaminkeena dumar hadaynu nahay waxyaaba badan ayaan maaragtay inagu aynu dadka kaga duwanahay marka inta badan inaynu liin bambeenada cunno inaynu qudaarta cunno si maartay maqaarkeenu xitaa uu soo noqdo aad ayaan maaragtay inagu dhiirigelinayaa dhammaantiina waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof kasta oo su'aal u baahan qof kasta oo su'aal raba qof kasta oo danaynaya isbedelka maanta aan helay diyaar waxaan u ahay inaan ka caawiyo isagoo oo informationkiisa soo weydiinaya facebookayga la soo xiriiri kara whatsappkayga telephone numberkayga horumar sideed ku gaari karnaa ayaynu si su'aalaynaa sidaynu ku tallaabsan karnaa sidee maaragtay lifestyle ku heli karnaa intaba aniga iyo adigu fikrada waynu wada qaybsananaa talada guudna waan ku siinayaa insha Allah aad baan dhamaantiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu